ku saabsan tahay gobolada waqooyi ee Soomaaliya marka maadaama ay muhiim tahay in Soomaaliya isku timaado ama midow Soomaaliyeed oo wada la sameeyo dawaa waraysi aad bixisay waxaa sheegtay in aad ugu adkaaday wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya kuma la dawaa la taaban kara rinkan marka ajendaha ama qorshaha kaaga degsan in aad Soomaaliya gobolada waqooyi oo maqaran gobolada kale aad Soomaaliya soo yeesho konfurta soo yeesho siyaasadda ama ajendaha cusub oo mar maadaama hore u bilowday laakiin aad ku guulaysan ajendaha cusub oo mar la nadiiyo siyaasadda sabab midkan xaq u diinaya wadankeena waxaan anaga Soomaaliya ka shaqeeyo magaalada muqdisho maanta waa aragnaa boor kasta ugu dhigo wuxuu qori aqalay taas adiga maxaa ka ogaa inaad qabato su-aasha kale ugu diin maxay tahay wadankeena waa wadan aad u weyn wuxuu leeyahay gobolo badan caafimaad kasta oo la doono waxaa lagu maamulo magaalada muqdisho gobolada muqdisho dukunta isbitaallo iyo wax lamid Somaliland حكى قرشة Somaliland قرشة هي وعديها كبشنا ملء واجينا ما نفشل من وقت ما نقدر ما علي أيضا مال في عنو مريسو أي شريف لبدلي أنا كوريجي حسن شيخ أنا كوريجي مال في Somaliland في وقت مركز وسيلان صدري وبارك في وتهنيدين هيو أي كوريجي أيك أمرك ما بدأوا فشلنا أيك فشل موجة نكتنا مال في عم بينهم مريس مال أبو في عم والرجال هيروتي نوم مريس Somaliland نكون من سنة هاي هرت ضد قوي عندي باتلوجيست وين أكرنا باتلوجيست المجا الصوماليات باتلوجيست مركز شخصي مسؤول كمان نقرأ شخص هذا مسؤول بكل نقرأ لكن دولة لماذا مجا الدولة لماذا الصوماليات باتلوجيست marka horta dhibaatadii in laga garaabo way waa mid oo dhibaatadii loo geystay in laga garaabo way mid labaad dawlad dad xor ah oo madax banaani qaatay ee Soomaali jacayl ayaka midnimada keenay koonfur ma keenin midnimada in Soomaaliya ay midowdo ayada hatta 6 bilood warba 6 bilood aan kala tashano oo maaragtay ayaka shacabkii baa shacabku qoy baa وده إلا وإلا حكومات رتي مرة الصومالي إحنا لو السودان شروط كان صدق الشروط بدون شروط بدها تدخي عين كاسها أيوة وحلاقات مدحوين نمدي وحلاقات برايم مينستر وحلاقات تليه عيدا وحلاقات تليه بوليسكا وحلاقات بدونيه بنكا هل شيء الله رهيبي أو المقدري مجرم صوتوا بما وصوتوا بعد ولا تبين دول مجازنا مالين للسهرات أو كبعدي وهو رهضنا نقول حنا قلنا إلا وده هضبا أيضا دولة تتحاب ومرين أيضا دولة اللي تجرا أيضا وده ما كان هوتيل ده أي استان اللي تكتب أما هرجيسان قوة هضينا أما سحمة بقوة هضينا أما برعان قوة هضينا أما بورا ما قوة هالماشي رمان بقوة هضينا هدير هواني وحي أقر شيء سن أنا تجابر أما قضية الصومالية يجوا سوداويا أما مدح الصومالية يجوا سوداويا وحي رمان يجوا سوداويا إن أتجه أنا براديو أن أتجه عذر دارنا كبحنا وحيد عيال عذر دار كبحنا مجا الصومالي أن عذر دار كبحنا كبعدنا وده هذا الكاسي هداي كان توفيري هداي كان أنا مركي فكر كان قبلي وحي إن دو 8 سنة اللي يسكسوا عليه وطنك سيدو ده أي قيب أي فيدرال كمد نقدار 8 سنة من المدي الصومالية بسوا عليه أي سو سنة يسمى مران سيد هذا بيسمى مران 8 سنة دبدت إن مركز لقاضي أفتي عليك لقى قاضي يقول له وقوي أفتي داسي أو حرة أو مدح فنان أو حلال وما من إهل قف الدولة من لماذا حرة أو حبسيلها هم بو أيوه كم بين جرينا قف الدولة كلا أنا سحر أو مدح فنان أو حلال وكم بين جرينا هذه تكون مركز أي دورتان إن أي جوان نمبر 1 تغيير حياتنا هذا dhamaadka sanadkan واجينا ما نفشل من وقت ما نقدر ما علي أيضا مال في عنو مريسو أي شريف لبدلي أنا كوريجي حسن شيخ أنا كوريجي مال في Somaliland في وقت مركز وسيلان صدري وبارك في وتهنيدين هيو أي كوريجي
ayakaa marka meel hadday fashilantahay ayakaa fashilmowya nakarteena meel fiican bay noo maraysay meel aad u fiican oo rajalahay runtii noo maraysay somaliland innagu waxaan aaminsannahay horta dadkaas waqooyi in dhibaato loo geysta waa inaan tirnaa dhibaatana loogu geystay magaca soomaaliyeed baa dhibaato loogu sabar markaan waxaa gudiinaya wadankeena waxaana anaga soomaaliya ka sheegto magaalada muqdisho maanta u aragnaa boor kasta ugu dhigan wuxuu qoray afkale taas adiga maxaa kaa ogaa inaad ka qabato su-aasha kale gudiyan waxay tahay wadankeena waa wadan aada u weyn wuxuu leeyahay gobolo badan caafimaad kasta oo la doono waxaa lagu imaada magaalada muqdisho gobolada muqdisho dukantaa isbitaallo iyo wax lamid somaliland maxaa kaaga qorshe somaliland qorshahaygu waa cad yahay gabashada male shuruudkan sidaa la dhahay shuruud biduuni shuruud bay dhahay dadkii caynkaas ahaa ayaa waxaa laga qaatay madaxweynenimadii waxaa laga qaatay prime ministerkii waxaa laga qaatay taliyihii ciidanka waxaa laga qaatay taliyihii booliiska waxaa laga qaatay guddoomiyihii bankiga hal shay oo loo reebay oo lagu qadariyey ma jirin soo dulmi maaha waa dulmi cad waa la dulmiyey dulmigaasna meel in la saaraa raba marka hore kabacdi waa wada hadlaynaa innagu waxaan ogolnahay in la wada hadlo iyadoon dawlad saddexaad loo marin gudoomiye su-aasha waxay ku saabsan tahay gobollada waqooyi iyo somaliland marka maadaama ay muhiim tahay in soomaaliya isku timaado ama midow soomaaliyeed oo awoodda la sameeyo dhawaan waraysi aad bixisay waxaad sheegtay inaad adigu aad bilowday wadahadallada somaliland iyo soomaaliya kumaadna la taaban karaan rabayn karin marka ajendaha ama qorshaha kaaga degsan in aad soomaaliya gobollada waqooyi oo maqarn gooniyo taagnaa aad soomaaliya la soo midowso ama koonfur la soo midowso siyaasadda ama ajendaha cusub aad u mari lahayd maadaama hore u bilowday laakiin aadan ku guulaysanin ajendaha cusub aad u mari lahayd muxuu yahay siyaasadda wata marka shaksi mas-uul kama noqona shaksi hadhow mas-uul buu ka noqonaya laakiin dawladnimada magaca dawladnimada soomaaliyeed baa dhibaato loogu geystay marka horta dhibaatadii in laga garaabo wey waa mid oo dhibaatadii loo geystay in laga garaabo wey midda labaad dawlad dad xor ah oo madax banaani qaatay ee soomaali jacayl ayakaa midnimada keenay koonfur ma keenin midnimada in soomaaliya ay midowdo ayadaa xataa 6 bilood warba 6 bilood aan kala tashano oo maaragtay ayakaa shacabkii baa diiday shacabka waqooyi baa diiday oo dhahay ilaa wa ilaa xukumaad rabtid marna soomaaliya hanaloo aan isku darsano